تدو وقوت حانوي يعني تقتدي كداف تبا وحبا لقد تحراعي عرنتي مركا تاغن ولا لا تعالى تيمادد مركا مقنوا عينادو توغيسو awjadkiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tubta toosan iyo guusha waa loo tartamayaa tallaabooyinkana qaadnayba حكومتنا تاغيرو آنس كرب تاغنو تفراروغ لما دوني توغو ودا يشا تبتا توسن iyo guusha waa loo tartamayaa tallaabooyinkana qaadnayba حكومتنا تاغيرو آنس كرب تاغنو تفراروغ لما دوني توغو ودا يشا awjadkiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay dawladda madan lanahayo lagu tanaado wax la taaban karo way qabteen toos fuliyeen awjadkiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay madaxda taladan ogaysa way taxadarayaane turxan iyo dhaliil male runtii tuunku waaebe qabyala tuurno ka taga tal iyo reer isku tiirsanaado tashada toobigana raaca shaqaaligii tabtu yahay baldaya loona tira koobay mid waliba tixraac iyo taswiir tasaru helayay awjadkiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay awjadkiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة بنتلان مدن السعيد عبد الله الدني وحا ومانتا كورميري وزارة ديغانكا بيراها يسبدلكا عميلada halkaan oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta wasaaradda madaxweynuhu waxa uu kormeeray xarunta badbaadada beeraha iyo la dagaalanka ayaxa halkaasi oo khubarada iyo farsamo yaqaanada hawshan ka shaqeynaya ay madaxweynaha la wadaageen oo u faahfaahiyeen sida ay u shaqeeyaan shaqadu sida u socoto waxyaabaha qabsoomay iyo waxyaabaha qorsheysan madaxweynuhu waxa uu arkay gaadiidka iyo qalabka iyo farsamada lagu la dagaalamayo ayaxa oo meel wanaagsan maraysa ilaa iyo haatan dawladuna ay wax wanaagsan ka qabatay kormeerka wasaaradda deegaanka waxa madaxweynaha ku weheliyay mas'uuliyiinta dawladdu ay u saartay heer wasiir ee ah gudida wax ka qabashada saameyntii ayaxa uu ka geystay deegaanada Puntland iyo waliba xubno ka tirsan golaha xukuumadda oo yana kormeerka madaxweynaha ku weheliyay gudidaasi waxay madaxweynaha la wadaageen warbixin waxyaabaha u qabsoomay iyo qorshayaasha ay samaysteen madaxweynuhu waxa uu arkay oo sidoo kale uu la kulmay xubno kala duwan oo qayb ka ah qaybta saadaasha u qaabilsan wasaaradda oo aqoon isweydaarsi siinaysay xubnahooda u jooga degmooyinka iyo gobolada kala duwan ee Puntland gaar ahaan digniinta
qadiman iyo saadaasha cimilada oo wasaaraduna ay aad u horumarisay xogaha la xiriira oo dabcan ay inta badan ay dirto degniino ku saabsan marka ay warbixinuhu sheegaan saadaasha roobabka iyo duufaanaha madaxweynuhu waxa uu bogaadiyay shaqada ka socota wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada waxaana uu faray oo kula sii dardaarmay in intaasi laga sii horumariyo sidoo kale madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu kormeeray wasaaradda caafimaadka halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta wasaaradda waxa uu booqday qayb gaar ah oo markaasi uu ka socday shir ku saabsan kor u qaadista aqoonta shaqaalaha caafimaadka iyo waliba warbixin la xiriirta tirada cudurrada ka jira deegaanada Puntland tirakoobka guud ee cudurrada bukaanada tuwaas oo lagu muujinayo boqoley iyo warbixin caafimaad oo guud oo madaxweynuhu halkaasi shir ka socday ayuu cabaar ka qayb galay oo dhageystay sida ay shaqada wanaagsan ay u socoto intaasi kadib waxa uu kormeeray xarunta wicitaanka degdega ah oo loogu talagalay dadka isaga shakiya COVID-19 oo wasaaradda la soo xiriiraya si maartay wasaaraduna ay u caawiso baaritaan u helaan daryeel caafimaad ay dawladdu wax uga qabato madaxweynuhu waxa uu booqday qaybta daawooyinka kaydka daawooyinka ee wasaaradda caafimaadka halkaasi oo uu warbixin ka dhageystay mas'uuliyiinta wasaaradda u qaabilsan sida wanaagsan ay u diiwaan gashan yihiin daawooyinka yaala taariikhdooda wadamada soo saara sida ay u kala xireysan yihiin oo u fudud oo loo heli karo haddii xaalad kasta ay timaado iyo waliba sida wanaagsan ee loo nashqadeeyay qaybta kaydka daawooyinka ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland waxa uu bogaadiyay shaqada wanaagsan ee ka socota wasaaradda caafimaadka oo haatan waxyaabaha ugu weyn ay dagaalka kula jirto oo aad ay waqtiga u galisana uu kamid yahay cudurka adduunka halista ku ah fidaya COVID-19 taas oo wasaaraddu ay sidoo kale warbixin toddobaadle ay golaha xukuumadda markasta shirka golaha wasiirada ay ku soo bandhigto guud ahaanba shaqo wanaagsan ayaa dalka ka socota saakana madaxweynuhu labadaas xarumood ayuu booqday iyadoo sidoo kalena uu madaxweynuhu kulan la qaatay gudida dib u habeynta shaqaalaha dawladda oo isugu jira wasaaradda maaliyadda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo waliba madaxtooyada gudidaas oo muddooyinka ka shaqeynayay dib u habeynta shaqaalaha rayidka ah waxaana uu madaxweynuhu ka dhageystay warbixintooda meesha ay wax u marayaan iyo waliba halkay u marayso nidaamka mushahar kordhinta ee shaqaalaha rayidka ah madaxweynaha ayaa faray gudidaasi in loo baahan yahay in la dedejiyo qaybta shaqada harsan si mushahar kordhinta shaqaalaha dawladda ay u bilowmato bisha Janaayo 2021 sanadka cusub insha Allah waxaana ay noqonaysaa tan markii ugu horeysay oo dawladda Puntland ay mushahar kordhin u sameeyso shaqaalaha tan iyo markii Puntland la asaasay tanna waxa qayb ka tahay siyaasadda madaxweynaha ee ku salaysan tayeyn iyo tiigsi tayeynta dawladnimada iyo waliba nidaamka dawliga ah taas oo runtiina aad ay dadweynuhu u bogaadiyeen aad iyo aad u mahadsantiin